dagaalkan oo ah mid aad u culus ayaa waxa uu bilowday barqanimadii hore ee maanta waxaana uu ka socdaa dagaalkan deegaana hoostaga degmada Walaweyn gaar ahaan dhanka galbeed waxaana u dhaxeeya Maleeshiya beeleedyo isku haya aanooyin qabiil iyo sidoo kale dhul waxaana lagu soo waramayaa in dagaalka xilligani uu sii xoogaystay saacadihii u dambeeyay dagaalkan ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay u sheegeen dadka deegaanka warqabadka idaacada Shabeelle ee deegaanada Koonfur Galbeed dhinaca kale xiriiro kala duwan aan la sameynay taliska militariga Soomaaliga ee fadhigoodu yahay xerada tababarka Beledoogle iyo maamulka degmada Walaweyn si xog dheeraad ah u helno ayaa noo suuragelin balse mid kamid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacada Shabeelle dagaalkan ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana ku dhintay inta la ogaaday ilaa 5 ruux halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen dadka qaarkood ayaa la sheegay in iminka ay isaga barakaceen maadaama dagaalku uu sii xoogaystay isla markaan laba dhinac la sheegay in ay helayaan gurmad odayaasha horta shanta farood waa muddo xumo kuwa xataa saaxiibadana idaacada ka hadlaytaa ma xumo waa dad wanaagsan oo aad iyo aad sumada ka taliya laakiin mataqaanaa in idaacad ama Facebook ama mataqaanaa bare bulsho in nabadoon uu soo fadhiisto hadal munaasab oo sii deeyo waxaan leeyahay dadka walaalaha oo aftiisanka ah uma roono dadka deegaanka uma roono deegaankan waxa waaye waa la wada degnaay waana la wada deganaa doonaa arladana waa arlullahi ilaahay arladiisa waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mataqaanaa xaggiisa u noqonaynaa dad 2 mitir ah oo aad mataqaanaa aad ku leedahay halkaas ayaad mataqaanaa ku dabaynaysaa marka in nabadda laga shaqeeyo oo dadka mataqaanaa xoololeyda ah iyo beeraleyda iyo mataqaanaa isma haystaane dadka meesha laga horinayo in laga damiyo maamulkana waxaan leeyahay mataqaanaa inay maamul mas'uuliyadii saarneed ay u dhaqmaan gool loo dhigo dadka la iskugu yeero si sax ah loo abaaro arrintan Walaweyn waa soo laabatay way soo noqotay halka mataqaanaa ay ka daawada laga helayo in la wada abaaro si saxna loo aado ayaa soo jeedinay walaalo mataqaanaa arrinkan maamulka gobolka Shabeellada Hoose dekor waa kala hadalnay waan kala fariisanay gudoomiyaha aad u dadaalay Maxamed Ibrahim Ali Najax aad u dadaalay wasiirka arrimaha gudaha sidoo kale waa kala fariisanay isku dayo fara badan ayaa mataqaanaa soo dhacday asikasto yahataba waxa lagu soo waramayaa in iminka xaaladdu ay tahay mid aan la qiyaasi karin waxaana aan ahayn markii ugu horeysay labadan maleeshiya beeleedyo halkaas ay ku diraan Cabdifataax Ali Umar Tawakkal warbaahinta Shabeelle deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya على طريقة فان باستين وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسعو halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartooyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee goolaadka شيء كبير السلسعو kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Samtel adigoo isticmaalaya hal eber 2 Samtel caalami